waxaan rabaa meesha inaan ka sheego annagu ka maamul gobol banaadir ahaan ilaahay idankiisa waxaa naga go'an arrimaha guryaha ha karaamaysnaado ha weynaado madax ha ahaado qof maskiin ha ahaado awood ha lahaado yuusan lahaanin inaan ilaahay idankiisa ka daba tagno oo aan magacaawno aana sheegno ilaahay idankiisa qofka guri islaameed degan ama qof guri ku haysto maanta fursad lagu karaamee karaa haysataa bannaanka u soo bax dad wanaagsan oo ku karaameynaya ku jiro haddaadan yeelina annaga cadaaladaas waa ka daba tegayna insha allahu tacaala waxaa soo hartay arrinta cadaaladda oo dadka laftirkooda ay ka hadlayaan dhinaca amniga waxaa asaas u ah inay cadaalad timaado wiil yar baa ila hadla asagana wuxuu igu yidhi waxaan rabaa su'aal waa wiil aad u yar runtii oo dadka xamar degan ah wuxuu igu yidhi su'aal fudud ayaan rabaa inaan ku weydiiyo jawaabaan kaaga baahan waxaan ku yidhi maxay tahay su'aasha wuxuu igu yidhi hooyada cariishka dhisanaysa midda muufada dubaysa iyo aabbaha biyaha gadaaya ninka canshuurqaadaha waa soo arkaaye ninka wax qarxinaya guriga lagu sameynaya maxaa loo soo arki lahayaa bal hadalkaas u fiirsada ninka wax qarxinaya oo gaari intaa la eg weyn soo buuxinaya garaash geynaya suun isku soo xiraya tababar soo diyaarinaya inta imaada haddana gumaadaya maxaa loo arki waayay su'aal xujo ma ah hooyadii muufada dubaysay oo meesha ay joogto aan ognahayna kii canshuur qaadaha wuu arkaa muu arka midkaas waa hadda xaqiiqa soo ma waxaan ku idhi marka wiilkeena waxaan ku idhi waa mahadsan tahay hooyadaas ilaahay idinkiisa waxay gaaraysaa inay ayadu canshuurta aragto kan canshuurta qaadayana kan wax qarxina uu arko insha allahu tacaala sababtoo taas waa inay cadaalad heshaa